وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وبعد. شيخ سيدات مقليسين وحباهي وين كجرتا مسجدك لو يقان مسجدك عبد الرشيد كويا الله تلاح ومسجدك ودسي مدحوينه هراء عبد الرشيد علي شرماركه تاريخ هذا مقليسين فوق لدسي marka masjidkaasi aad ayuu u dayacan yahay dhismihiisii waa la bilaabay wuxuuna qarka u saaran yahay inuu istaago dhaqaale la'aan awgeed sidaas awgeed waxaan ka codsanaynaa jamaacada iyo dadka muxsiniinta ah inay masjidka ay garab siiyaan oo masjidka ay gacan u fidiyaan akoonadooda jeebabkooda inay maaragtaahay u furaan beydka ilaahay ay saacidaan oo ay taageeraan waa fursad qaali ah innaga waxay noo tahay fursad qaali ah qof walba oo addoon ilaahay ah oo masjidkaa wax ku darsada isaga adduunkiisa iyo aakhiradiisaba faa'iido wax u soo laabanayo way caafimaadkiisa awlaaddiisa hantidiisa iyo ilaahay oo janno ku siinayo subxaanahu wa tacaala marka saas awgeed aanu taageerno akoonnadiisa wax loogu tuurayo iyo yacni lambarrada lacagta loogu shubayo kulli boorkaasi ku qoran yihiin aanu saacidno ka faa'iidaysano in sha allahu tacaala intaas ka bacdi khudbada waxay ka hadlaysay walaalayaal ahmiyatu lwaqti ahmiyadda iyo qiimaha uu iska leeyahay waktiga ahmiyadda marka waktiga walaalayaal uu iska leeyahay waxaad garanaysaan nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka uu ugu nicmeeyey waxaa ka mid ah waktiga saacadaha ku soo maraya maalmaha ku soo maraya bilaha ku soo maraya sanada ku soo maraya kulli waxa weeye waa nicmooyin ilaahay uu kuugu deeqay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkaasi markaa waa waxyaalaha bini aadamku ay ku siman yihiin nicmadaas waktiga habeen iyo maalinta waa 24 saacadood bini aadamka ilaahay waa u simay 24 qof walba waxaa la siiyey 24 saac ama ha dayaco ama ha ka faa'iidaysto lama dhihin qofka hantiilaha ah wuxuu iska leeyahay 30 saacadood kan faqiirkuna wuxuu iska leeyahay 2 saac oo kale ah lama dhihin qofka dadka caddaanka ah waxay leeyihiin 30 saacadood dadka madowgana waxay iska leeyihiin 2 saac oo kale ah waxyaalaha bini aadamku uu ku siman yahay oo ilaahay uu ku simay subxaanahu wa tacaala bini aadamka waxyaalaha ilaahay si sinaasho ah uu ugu nicmeeyey waxaa ka mid a waktiga waa lagu siman yahay qofka qaniga ah ee yacni milyandheerka ah wuxuu haystaa 24 saac qofka faqiirka ah wuxuu haystaa 24 saac kan madaxda ahi wuxuu haystaa 24 saac shacabkuna waxay haystaan 24 saac waa nicmo lagu wada siman yahay laakiin waxaa lagu kala hormaray nicmadaas sida looga faa'iidaysto waxaana lagu kala dhacay oo lagu kala hooseeyaa sida loo dayaco nicmadaas iyada ah waktiga marka walaalayaal waa cumrigaagii saacadaha iyo maalmaha ku soo maraya bilaha ku soo maraya sanooyin ku soo maraya waa cumrigaagii haddaad dayacdana waxaad dayacday cumrigaagii iyo noloshaada haddaad qiimayso ood ka faa'iidaysana waxaad faa'iidaysatay cumrigaagii ayaad ixtiraamtay marka labadaa dariiqun mid mar qofka saacadihiisa ku cayaaraya wuxuu ku cayaarayo waa cumrigiisii ma aha wax cumriga ka baxsan waxaad dayacayso ood kharaabinayso maalmo yar unbaad ku leedahay iyo sanooyin iyo yacni bilo kooban ayaad dunidan ku leedahay maalmaha iyo saacadihii haddaad iska dayacdo waxa nafci ah oo adduunyo kuugu soo laabanaya ama aakhiradaada nafci u soo laabanaya aadan uga faa'iidaysanin oo gidaarka aad la fadhiisato saacadaha derbiga aad la fadhiisato amaba aad ku bixiso macaasi iyo shahawaad xun iyo waxyaalo ilaahay caro gelinaya aad ku bixiso waxaad ogaataa qofka khasaaraya waa adiga oon cumrigaaga waxaad ogaataa dhibka saacadaha ka soo laabta aad ku cayaartay waa dhib cumrigaagii ka go-an waa adigoo isdayacay waa adigoo noloshaadii baabi'iyey sidaas awgeed waxaa jirta qaacidadaas waxay leedahay
من أنفق أوقاته في تافه كانت حياته تافهة qofka waqtigiisa wax liita ku bixiya noloshiisuna waxay soo baxdaan nolol liidata waxaan macno lahayn qofkii saacadihiisa iyo maalmihiisa u ogolaada inuu ku bixiyo wuxuu ogolaaday cumrigiisa iyo noloshiisa inay noqoto nolol liidata iyo cumri liita oo wax qiimo ah iyo wax miisaana ilaahay agtiisana aan ku lahayn bulshada dhexdeedana aan wax miisaana ku lahayn habka aad waqtiga aad mar walbaba ula dhaqanto ayaa cumrigaaga iyo noloshaaduna ay ku xirantay haddaad waqtigaaga wax rakhiisa ku bixiso qof rakhiisaad noqotaa ilaahay agtiisana rakhiis ka ah aakhiro rakhiis ka ah adduunyadana rakhiis ku ah haddaad waqtigaaga ku bixiso waa qaacido cajiiba qaacidadaasi aan xafidno aanna mar walbaba dhaqan gelino waman anfaqa waqtahu fii cadiimin kaanat xayaatuhu cadiima qofka waqtigiisa ku bixiya wax weyn oo qaaliya wuxuu noqdaa qof qaali ah qofka waqtigiisa ku bixiya wax qiimo leh wuxuu noqdaa shaksi qiimo leh adduunyadana qiimo ku leh aakhiradana ku qiimaysan waa hadba sidaad u dhaqantid mahmaa saacadahaaga iyo maalmahaaga wax liita aad ku bixinayso waxaad soo bixi doontaa shaksiyad liidata ayaad soo bixi doontaa adiguna sidaas awgeed waqtigu waa wax cajiib badan liannahu qofku markuu janno helayo xagguu ku raadiyaa jannadaas waqtigiisa inuu bixiyo ku raadiyo ay ku xihantay qof aan waqti bixin janno ma helayo markaad doonayso adduunyada shaksi qiimo leh inaad ku noqoto maxaad u baahan tahay inaad waqtigaaga wax qiimo leh ku bixisid markaad doonayso maal xalaal ah ee noloshaada aad ku maarayso inaad gaarto waa inaad waqti ogolaatid markaad baadigoobaysid caafimaad waa inaad caafimaadka waqti ku bixisid markaad doonayso cilmi iyo waxbarasho waa inaad waqti bixisid wax walbee dunidan ka dhacaya waqtigay u baahan yahay wax walbee sharaf aakhiro ku dhacana waqtigay u baahan yahay inaad ku bixiso wax waqti la-aan dhacaya ma jira idan waqtiga cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah qofka xumaatada uu isticmaalana xumaatuu ku gaaraa qofka wanaag uu isticmaalana wuxuu soo baxaa shaksi wanaag uu haraynayo oo wanaag uu ku hareeraysan yahay mar walbaba walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimaha waqtigu uu leeyahay isagoo tusaale naga siinaya in badan ilaahay wuxuu ku dhaartay waqtiga wاlleyli idaa yakshaa wالnahaari idaa tajallaa ilaahay wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayaa habeenka iyo maalinta limaada ilaahay habeen iyo maalin ugu dhaartay waxa ilaahay uu ku dhaaranayo waa wax qaali ah yani wax qaaliya waxa ilaahay uu ku dhaaranayo waxa ilaahay uu ku dhaartay casirka wاlcasri ina اlinsaana lafii khusr waxa ilaahay uu ku dhaartay fajarka wاlfajr walayaalin cashr sidaas awgeed markuu tusaalooyinkaa ilaahayna siinayo macnaheeda waxaa weeye waxa ilaahay uu ku dhaaranayo waa waxaad qaaliya oo aada u qiimo badan walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala su-aalaha qofka nolosha adduunyadana ka dhacay aakhiro nolosheedana ka dhacay oo labadaba ku khasaaray hal su-aalaa la weydiiyaa qiyaamaha markuu tago awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar wajaaءakum الnadiir waxaa la leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar miyaanan idin cumri siin cumri lagu waana qaadan karo jaanis miyaanan ku siin wakti ah wakti jaanis ah saacado maalmo bilo sanooyin aada noloshaada ku bedeli karto oo noloshaada wax uga faa'iidaysan karto oo janno aad yacni shaqaysan kartid oo ilaahay ridihiisa aad ka faa'iidaysan kartid oo adduunyadaadiina aad nolol wanaagsan ku noolaan kartid cumrigaa miyaanan ku siin marka waktigu waa jaaniska wax la iska weydiinaya waktigaaga markuu waxyaalaha cajaa'ibta waktigu iska leeyahay waxaa ka mid a cajaa'ibtiisa waxaa ka mid a bediil ma lahan isagu
hal saac ama hal maalin hadday macno darro kaaga go'do kuu soo laaban mayso mid kalaa imanayso iyaduna kaa go'aysa oo cumrigaaga ka go-an waxyaalaha cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah inuu waktigaagu ku dhaawacayo oo waktigu wuxuu kugu dhaawacayaa cumrigaagii qayb ka mid ah inuu goostay oo uu la tegay saacad walba soo go-da qabrigaad usii dhowaano waad sii socotaa adduunyadana dhabarkaad u jeedisay saacad walba ku soo dhaafta aakhiradana dhinaca wejigaad usii jeedisay waad sii socotaa saacad walba wax sida cajaa'ibtaas la midahu ma jiraan lacagtu hadday ku dhaafto cumrigaagii kama go-na biri lacag kalaa laga yaabaa inaad hesho saaxiibku hadduu ku dhaafo ood saaxiib weyso cumrigaagii ma aadan weynin laakiin wakti haddaad weyso ogaal cumrigaagii aad weysay cumrigaagii ka go-anta cajaa'ibta waxay ka mid tahay saacadahay waktiga saacadahay cajaa'ibta waktiga ayay ka go-an tahay sidaas awgeed imaamu daarimi kitaabkiisa sunanka ah wuxuu ku wariyey saxaabiga abi hurayra wuxuu ka wariyey daarimi inuu dhihi jiray abi hurayra إنii ujazi'u leylii ثalaaثaةa أجزاء habeenkayga waxaan u qaybin jiray 3 qaybood uu dhihi jiray abi hurayra fajuزء anaamu fiihi wajuزء aquumu fiihi wajuزء atadakaru fiihi أxaadiiثa rasuuli الlah salى الlahu وsلم وbaaraka عalيh abu hurayra wuxuu daarami sunankiisa ku wariyey inuu habeenkiisa kala qaybin jiray kala xadidi jiray 3aan habeenkayga u qaybin jiro waa 4 saac iyo 4 saac iyo 4 saac 12 saasay ku noqon 4 saac oo habeenka ka mid ah waan seexan jiray waan hurdi jiray 4 saacana waxaan u taagnaan jiray cibaadada ilaahay saasaan u qoontay salaatu leyl qiraa'atu lqur'aan adkaar iyo wardi iyo ducada ilaahay 4 saac idan ku jiri jiray baddaasaan ku jiri jiray 4 saac oo ii soo hartana cilmigii iyo axaadiistii nabigu inoo sheegay salى الlahu عalيه wasalam ayaan ku daalacan jiray buuri si aan u xafido axaadiista nabiga aan u xafido salى الlahu عalيه wasalam saas ma noogu kala qoondaysan yahay waktigeena habeenkii saas ma u qaybinay maalinta 12 saac oo ilaahay uuna siiyey saa ma noogu qaybsanta mise waa iska socdo meeshay ka dhacayso ha ka dhacdo meeshay ka dhacayso ha ka dhacdo oo saasaynu badannahay ilaa man raximah اllah ilaahay uu u naxariistay mooye ilaahay waafajiyey mooye waa saacadihii iyo cumrigaagii meeshay ku dayacmayaan ha ku dayacmaan meeshay ku dayacmayaan ha ku dayacmaan qofka noloshiisu sidaas ay tahay waa qof xaqiiroo liita noloshiisiina kharibay ku cayaaray waktigiisa aan ka fikiray marka saxaabiga abu hurayra habeenkiisa 3daas qayboodu u qaybin jiray waa idaaro cajiibow waa qorshayn iyo maamul cajiibow lanna way ku filantahay qofka 4 saac hadduu hurdo habeenkii way ku filantahay isagoo nashaad luu hadhuu soo toosi karaa oo u firfircoon cibaadada ilaahay 4 saacna waxaan ku jiri jiray uu yihi salaatuleylka iyo qiraa'atu lqur'aan iyo tasbiix iyo duco 4 saac 8 saac saasay u tageen 4 saac oo ii soo hartana axaadiista nabigaan akhrisan jiray salى الlahu وsلم وbaaraka caleyh muraajacaan ku samayn jiray idan marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal dhaqankaas saxaabada oo kale dhaqankaas saxaabadu ay lahaan jireen iyo sida waktigooda ay sidaa ugu dadaali jireen in nolosheenna wax badan aan ka bedelno oo aan ku bedelno leanna waxay dareensanaayeen qiimaha waktigu ugu fadhiyo waktigu hadduusan kuu qiimaysnayn macnaheeda waxa weeye noloshu ima qiimaysna waktigu hadduusan kuu qiimaysnayn macnaheeda waxaa weeye cumrigaygii wax qiimaa ma lahan cumrigaygu qiimo ma lahan noloshayduna qiimo ma lahan haddii waktigaagu uusan qiimo lahayn sidaas awgeed nabigeena salى الlahu وsلم وbaaraka عalayhi xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa ku warinayey wuxuu ku yihi nicmataani maqbuun fiihima kahiiru min الnaas الصxaةu والfaraaq 2 nicmo dad badan kama faa'iideysan
caafimaadka iyo waktiga firaaqada ay leeyihiin dad badanaa ku sirmay oo aan ka faa'iidaysan uu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam caafimaadkooda iyo waktiga jaaniska ah dad badanaa ku sirmay oon ka faa'iidaysan waa saxiix caafimaadkaaga sii haysan maysid maalmaha aad caafimaadka haysanayso waa maalmo kooban maalmo kooban maalmo ka bacdi waxaa laga yaabaa inaad soo dhacdo sidii dadka kula midka ah ama kaa khayr badanba ay u soo dhaceen waa soo dhacaysa waxaad gaari doontaa maalmo aad qur-aanna aadan awood u lahayn inaad akhrisatid tasbiix iyo wardina aadan awood u lahayn xanuunka ku haya iyo dhibaatada ku haysa awgeed aadan awood u lahayn qur-aan iyo wardi iyo tasbiix aadan awood u lahayn ayaa laga yaabaa inay ku soo wajahday oy kuu soo socoto ayaa dhici karta hadda laakiin waxaad awood u leedahay waktigaagii inaad adduunyadana uga faa'iidaysato aakhiranadan uga faa'iidaysato waxna aad ku baratid waxaa iman doona wakti aada nooshahay intaba aadan awoodi karin ciilna uu kuu qaban doono ciilna uu kuu qaban doono leannahu shaydaanku markaas wuxuu kuu furaa baabu alxasaraat waannadamaat markuu fursaddii uu ku gefsiiyo ayuu shaydaanku wuxuu furaa albaabka shallayda uu kugu ballaqaa markaas marka kalena kuma ogola jaaniskii fursadda inaad ka faa'iidaysato markaad soo dhacdo halkaas albaabuu furaa maxaan aa furmayso maxaan saa u yeeli maxaan saa yeeli maxaan taasuu kuu furay iyo low haddaan saas yeeli lahaa maxay tari marka waa makaayidu shayطaan makaayidu shayطaan siyaasadaha shaydaanku bini aadamka kula dhaqmo haddana marka waktigaaga aad dayacayso maaweelo iyo filin beenuhu kuu shidahay dhalanteed ah wuxuu inay saxan yihiin uu qalbigaaga ku akrinayo oo habka aad u nooshaa hab saxan nidaam saxan inay noloshaada ku beeskaraysan tahay saasuu kuu sheegaa maalintaad soo dhacdana wuxuu furaa baabu low haddaan saas yeeli lahaa haddaan waktigay wax ku baran lahaa haddaan waktigan salaatuleil ku dukan lahaa haddaan waktigan qur-aan ku akhrisan lahaa intaba ma awoodid sidaas awgeed nabigeena salى الlahu عalayhi wasalam wuxuu tilmaamay labadaa nicmo in laga faa'iidaysto caafimaadka waa nicmo weyn uga faa'iidaysto waxa adduunyadaadii ku taraya inaad wax ku baratid ku shaqaysatid ku cibaadaysatid uga faa'iidayso iyo waktiga firaaqada ah uga faa'iidayso waxaa imaamu tirmidi uu ku wariyey sunankiisa nabiga salى الlahu عalayhi wasalam inuu yihi man qaala subxaana اllahi الcaظiimi wabixamdih gurisat lahu nakhlaة fi اljanة qofkii yihaaha subxaana اllahi الcaظiimi wabixamdih jannadaa geed loogu tallaalaa yiri nabigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh imisaan dayacaynaa fursooyinkaas imisa seken ay kaa qaadan kartaa ama ilbiriqsiyo ay kaa qaadan kartaa subxaana اllahi الcaظiim wabixamdih waa wax iska fudud laakiin aan ku dayacnay wax qaaliya aan ku dayacnay aan ku baabi'inay idan marka jawhar kastee ku soo marta ilbiriqsi kasta iyo daqiiqad kastee ku soo marta cumrigaagu waa qaali ka faa'iidayso waddada haddaad iska maraysid adkaartay wardigaaga wado subxaana اllahi wabixamdihi subxaana اllahi الcaظiim maraad tiraahid maraad iska ducaysato allahuma inii asaluka alcafwa wاlcaafiya ducadu ma aha masjidka kaliya ma aha gaarigaaga markaad saaran tahay ducayso waddada markaad iska maraysid ducada iska wad waxaad dhici karta saacad inaad waafaqdo samadu ay furan tahay oo adduunyadaadiina ilaahay subxaanaه wa tacaala nolol wanaagsan ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kugu siiyo aakhirana janat اlfirdows ilaahay uu ku siiyo waxaad dhici karta adigoo waddada maraya hal eray oo tiri allahuma inii asaluka alcafwa wاlcaafiya ilaahu caafimaad iyo cafiyaan ku weydiinaya dembi dhaaf in liiska lagugu qoro ijaabada oo lagu aqbalo oo noloshaadii ay isku beddesho hal daqiiqo oo tiri allahuma inii asaluka alcafwa wاlcaafiya laakiin adigoo muqafala dariiqa ha soconin adigoo sidii neef xoolo ah muqafal waxba aan ogeyn yaa waktigiina iska socdo adkaar lahayn tasbiix lahayn duca aan lahayn ha iska socan
nebiga salى اllahu waslm wbaaraka calayh wuxuu inoogu sheegay xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu warinayey nin ayaa waddo marayey markaasuu wuxuu arkay waddadii geed qodax leh geed qodax lagu arkay qodaxdii waddada uu ka fogeeyey oo uu ka qaaday nebiga salى اllahu waslm wbaaraka calayh wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala fashakara lahu wagafara lah ninkaas ilaahay wixii dembi u lahaay oo dhan ilaahay wuu dhaafay ahluljannuna ilaahay ka dhigay intaas meeqo daqiiqo meeqo saacay ku qaadatay daqiiqadahaas yacni jannada iyo dembi dhaafka iyo noloshaas uu helay imise daqiiqay ku qaadatay shaqada uu qabtay imise laegtay qodaxaad jidka ka qaado ayaa noloshaadii wax ka bedeli karta bal wax ka weyn iska dhaaf oo naxariis dadka muslimiinta aad u naxari qof indhoolaa maraya qof waayeelaha maraya qof aan u jeedinaa maraya waddadii naxariista ay ku gashay ee ilaahay kugu naxariisanaa subxaanahu watacaala waa qof janno ku helay hal daqiiqo wax ka yar uu nabigu noo sheegay salى اllahu waslm wbaaraka waa qof noloshiisii isku bedeshay dhinaca wanaagga iyo khayrka iyo barakaadka iyo nafaxaadka hal daqiiqa wax ka yar jaanis uga faa'iidayso intaad waddooyinka marayso dhagaxa meesha yaalla qodxooyinka meesha yaalla dhalada meesha taalla wasakda meesha lagu soo daadiyey kulli ka qaad tasbiix uga faa'iidayso adkaar uga faa'iidayso qof muslimaad u kaalmayso ha noqoto kulli waktigaaga ku camir faa'iido wey faa'iido ku camir anwaac min alfaa'idaat anwaac faa'iidooyin ka mida ku camir nabigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh wuxuu inoogu sheekeeyey baqiya min albaqaaya saqad kalban yalhath haweeney tuman jirtay oo zaaniye ahaan jirtay waa xadiis bukhaari iyo muslim labaduba ay warinayeen ayaa waxay soo martay ey carrada qoyan cunay haraad iyo oon darteed eygii biyo u shubtay way waraabisay fagafara allaahu laha wixii zine ay soo martay oo dhan ilaahay waa u dhaafay waadkhalahaa aljanna ilaahay jannuu geliyey imisay waktigeedii ka faa'iidaysatay waddadii iska maraysay laakiin waddadii waxay ka faa'iidaysatay waktiga ay waddada marayso jaaniskaygii uga faa'idaystay xayawaanka inay u naxariisato nolosheedii oo dhan ay isbeddeshay marka daqaa'iq macduudaad daqiiqado tirsan ayaa noloshaada wax weyn iska bedeli karaa haddaad waktigaaga uga faa'idaysatid daqiiqado tirsan ayaa noloshaada wax weyn ay isaga bedeli karaan haddaad waktigaaga ka faa'idaysatid nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh xadiiskii bukhaari uu warinayo wuxuu ku yidhi acdar allaahu ilى mri'in akhara cumrahu xataa ballagahu 60 sana wax cudurdaara ilaahay uu ka baabi'iyo cudurdaar ma helayo qof ilaahay cumrigiisii uu gaarsiiyey 60 sano uu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam 60 sano jaanis yar miya imise maalmoodaa ku jirta 60 sano imise saacadood imise bilo ayaa ku jirta qofkaasi cudurdaar ma lahan uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam yani waa jaanis dheer hadduu noloshiisa adduunyo iyo jannadii ilaahay iyo ridaha ilaahay uu shaqaysan karo jaanis dheeraa la siiyey ku shaqaysan karo jaanis dheeraa la siiyey oo wax badan uu isbeddel uu ku samayn karo limaada waxa jaaniska loo siiyey waa waktiga la siiyey awgeed lidaalika nabigana salى اllahu waslm wbaaraka calayhi waxa uu tilmaamay waktiga in su-aal layska weydiin doono maalinta qiyaamaha xadiiskii tirmidi uu sunankiisa ku warinayay nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi laa tazuulu qadama cabdi xataa yus'ala can arbac qofku tilaab maalinta qiyaamaha ma qaadayo ilaa 4 arrimood laga weydiiyo 4ta arrimood maxaa ugu horeeya can cumrihi fiima afnaah cumrigaagii iyo saacadahaadii maxaad ku bixisay waa su-aala la iska weydiiyo cumrigii ilaahay ku siiyey saacadihii ilaahay ku siiyey maxaad ku bixisay ya maxaad ku bixisay ma sii haysanaysid cumrigan iyo noloshan iyo caafimaadka iyo waa xujo kugu socda mana haysanaysid maalmo ka bacdi waa lagaa qaadahay sanooyin ka bacdi waa lagaa qaadahay waanaad u shallaayi doontaa maraan yaman joognay waxyaalaha mar walbaba aan maskaxdeeda ka goyn yaman 2000 iyo waxay ahayd 8dii dhinac waxaan ku booqannay isbitaal marka ninka yamani uu ahaa nin culimaahu ahaa waxaa ku dhacay shalal acdaa xibnaha dhanaa shaqadii joojiyey hal far ma nuuxsanayso hal fal ma nuuxsanayso shalal acdaa ku dhacay baraalisuu noqday
marka xaalkaaga ka warran aan ku niri markaasu wuxuu yidhi laba arrimood haddii ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala uu ii fasixi lahaa fartaasi inay ii nuuxsato wax kale ma rabeenayo halkaas far inay ii nuuxsato haddii ilaahay ii fasixi lahaa oo ilahay ii caafin lahaa waxaan nidhi marka fartaas maxaad ula jeedaa fartaas maxaad ula jeedaa xubnuhu way badan yihiin wuxuu yidhi qofka ii khaadimeynaya oo isbitaalka igu caawiyo igu saacida mararka qaara waxa ay cuncunaysuu yidhi meel aan kala xishoodo inuu ii xoqo sida dabadii oo kale yidhi dabada meesha ay duleeshoo kale ayaan cunaysa markaasaan kala xishoodaa inay dhaha dabada farta geliye ii xog waa arrin ay haysatuu yidhi oo culays midda labaad musxafka qur'aanka waan ku rogrogan lahaa yuu yidhi qur-aan horteeda inta lasoo dhigo ayaa saas ugu gedisan lahaa yuu yidhi oo dadka kuma dhiben musxafka ii gediyan qiimaha caafimaadka u leeyahay iyo waxa adigu aada haysatid xubnahaagii oo dhanaa kuu shaqayna kulligood haddana waa dayacaysa waxaan macno lahayn ead ku dayacaysa weligay ma halmaamo ninkaa hadalkiisii yaa halkaas far haddii ilaahay ii fasixi lahaa inay dhaqdhaqaaqdo waa nicmo ilaahay ma xasuusanaysa hadda waxba maantoona waxbaad iska xog xogi meeshaad rabto hoos iyo koraad iska xogi laakiin macno hadda kulama laha kuma qiimaysna hadda markii lagaa qaado ayay cirkaas kaala weynaan xogiddii hadda xogidda annaga macnona lama laha kor iyo hoos meeshaan iska xoqayno maba u malaynaba wax weyn inay ku fadhiyaan laakiin dadka waayaa og dadka waayey ayaa og sidaas awgeed jaaniskan ma sii haysanayo nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi can cumrihi afartaa arrimoodoo bini aadamka laga weydiinayo cumrigiisa ugu horeeya waxa uu ku bixiyey wa can jismihi fii ma ablaah iyo jirkiisii waxa uu ku bixiyey indhaha waa nicmo ilaahay gacmaha lugaha waxa uu ku bixiyey jirkiisii wa can cilmihi fii ma camila fiihi cilmigii iyo aqoontii ilaahay siiyey inuu xumaato u adeegsaday inuu ku cibaadaystay su-aalaa laga weydiy wa can maalihi min ayna اktasabah wa fii ma anfaqa maalkii ilaahay uu siiyey meesha uu ka keenay iyo meesha uu ku bixiyey waa afar su-aalo ad adag afartaas su-aalo ad adag ilaa uu ka jawaabo tilaab ma qaadayo yidhi oo dhinaca jannada uma tallaabsanayo qofka muslimkaa u yihi nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh sidaas awgeed nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi umunaa caaisha waxay ka warisay dhaqankii nabiga salى اllahu عalayه wasalam markay tilmaamaysay kaana yadkuru اllaha fii kuli axyaani nabiga salى اllahu عalayه wasalam wakti ma arkay tiri ilaa ilaahu xusay sida waktiga uga faa'iidaysanaya nabigu salى اllahu عalيه wasalam ima inuu dacwo ku jiro oo dadka diinta ugu yeeray ima inuu qur'aan akhrisanayo ima inuu salaatuleyl uu ku jiro ima inuu ducaysanayo ima inuu adkaar ku jiro caaisha waxay tihi hal daqiiqo ma arkin nabiga salى اllahu عalayه wasalam oon howl ku dhex jirin aakhiradiisa ama ummaddiisa inuu u nusraynayo oo diinta ugu yeerayo daqiiqada weligay ma arkin ay tiri umra caaisha waa zawjadii nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh waxaa loo baahan yahay mar walbaba waktigaaga maadaama cumrigaaga uu ka mid yahay in xasuustaas aad ku noolaatid ku shaqaysid xamaad bnu salama sheekhi la dhihi jiray waxa uu ka wariyey oo uu ka sheegay dahabi fii kitaabihi tadkiraة اlxufaad kitaabkiisa la yihah uu uga sheegay haddii la yihaaho sheekhan xamaad bnu salama beriyaad dhiman ee waktigaaga ka faa'iideyso awood uma lahaynu sheekhaas inuu waktigiisa wax ka bedelo limaada markii hore u buuxiyey waktiga ewel u buuxayba saacadba meeluu ku aadsaday haddii la yidhaha marka beri aad dhimanahe wax ziyaadi waxba ma ziyaadin karo waxba ma ziyaadin karo leanna 24 saacba hore u buuxiyey waa buuxaan 24 saac ilahay uu xaqa u siiyey
marka waxaa la doonaya berri haddii lagu dhihi lahaa adiga waad dhimane berri oo sabti ah waad dhimanaya maanta bis ayaad jaanis haysataa haddii lagu dhihi lahaa maxaad ku samayn lahayd waktigaaga see yeeli lahayd waa ar ordi lahayn soo maaha inta tabarteenna ah gab aan bilaabi lahay war daynaa igu jire xagga daynkusi war qof hebela wax iga dhexeeyaan hebelow iyo cafi war heblaayo iyo cafi war qur-aanka ii soo qabo kitaab waan gebgableynahay de maxaad ka ogtahay hadda nafsadeeda berri dhimanaysa maxaad ka ogtahay leanna dadka dhintay kulligood berri inay dhimanayaan kuma tashanayn jadwalkana uguma jirin adiguna iyadoon jadwalka kugu jirin aad berri dhimanay maalin un waad dhimanay iyadoon xisaab kugu jira dadka ahlulqubuurka ah oo wada dhintay oo qubuuraha ku jira jadwalka uguma jirin berri aad dhiman qof walba waxaa laga yaabaa inuu ku fekeri jiray sanadka soo socda aad safri doontaa sanadka soo socda aad wax baran doontaa afarta sano soo socda guryaad dhisan doontaa qof walba nolol dheer uu ishordhigayay inta qubuuraha ku jirta kulligood barnaamijkoodii iyagoon gaarin ayaa la waday adiguna raadkoodii ayaad ku socotaa mar walbaba xasan albasri oo taabici ahaa wuxuu dhihi jiray adragtu aqwaama kaanuu calىa awqaatihim ashadda minkum xirsan calىa daraahimikum wa danaaniirikum waxaan soo gaariyey xasan albasri saxaabatu rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam oo waktigooda ugu dadaala sida lacagta aad ugu xisaabtantaan ka daran waktiga ugu xisaabtami jiray maanta qofkii $100 jeebka ugu jirto bilaash uma dayacayo meel kuma tuuray maanta oo dhan waxaa laga yaabaa dhowr daqiiqo inuu maskaxda rogrogu yidhaaho maxaad ku iibsataa dharaad ku iibsataa waalidkaagaad siisaa carruurtaad siisaa deynkaad isaga bixisaa muddu intuu ka fekeruu ka bacdi tilaab qaada saxaabatu rasuuli llahi salى اllahu عalيه wasalam sidaasay waktigooda ugu xisaabtami jireen saacaddan maxaad ku bixisaa ku shaqaysataa waxbaad ku barataa qur-aanaad ku akhrisataa mar walbaba saasay uga fekeri jireen oy ku xisaabtami jireen waxaa kaloo xasan albasri uu dhihi jiray inamaa yabna aadam inamaa anta ayaam bini aadamoo waxaa tahay maalmo tirsan hal maalin hadday kaa go-do cumrigaaga ayaa qayb ka go-ay saasuu dhihi jiray xasan albasri wuxuu kaluu dhihi jiray khaliifatu raashida cumar bna cabdilcaziiz ina alleyla waannahaar yacmalaani fiika facmal fiihima habeenka iyo maalintu shaqay kaa wadaan adiguna ku shaqayso shaqay kaa wadaan sooma way kaa shaqaysanaya waxbay cumrigaagii googoosanayaan way shaqada adiguna wax kala har cumar bna cabdilcaziiz saasuu dhihi jiray habeenkii maaligtu waxbay kaa goosanayaan wax ka gooso adna wax ka gooso cabdullahi bn mascuud hadalkaas hadal la miduu dhihi jiray cabdullahi bn mascuud ya wuxuu dhihi jiray isaguna maa nadimtu calىa shay nadamii calىa yowmin garabat fiihi shamsu naqasa fiihi ajalii walam yazid fiihi camali kama aanan shallaayin sida aan uga shallaayo maalin gabalkeedii uu dhacay cumrigaygiina ka go-an waxna aanan kala harin oo waxba aanan siyaadsan saan uga shallaayo waxaan uga shallaayo weligay ma arkin saasuu dhihi jiray saxaabiga cabdullaahi bn mascuud sidaas awgeed marka walaalayaal waa in hadda ka bacdi nolosheennii qof walba uu go-aan qaato in noloshiisii wax uu ka beddelay waktiga derbiyada lagu fadhiyo waktiga malaayacniga iyo waxaan noloshaada adduunyo aan taageerayn aakhiradaadana aan taageerayn oo derbiyada lagu fadhiyo oo malaayacniga iyo macno darrada iyo munkarka lagu samaysanayo wax badan ha laga bedelo waxyaalaha hadda yacni soo baxay oo cajiibkaa waktiga kharibaya waxaa ka mid ah bahalkan la yidhaha internetka facebooka youtube-ka iyo waxyaalaha la midka ah waxyaalaha waxay ka mid yihiin hadda nolosha ku soo cusboonaaday wax badanna cadowna ku ah waktigii bini aadamka leannahu shaydaankii iyo naftii waxan way jecel yihiin qofku markuu furo bejkan uu furo oo facebooka uu furo ama youtube qeyb ka mida uu furo wuxuu arkahayaa isagoo ishalmaamay saacaddu meelay maraysa baa lagu yidhi waxaa laga yaabaa 2 saac 3 saac dadka qaarkood inayba ku gaaraan 8 saac habeenimo siday u fariisteen ceshihii
aysanna dareemeyn waa qayb sixirka ka mida waxaad moodaa sixir inuu yahay sixirkaa isagana ha la yska ilaaliyo waxyaalaha cadowga ah oo waktigii bini aadamka khasaariyey kan ugu horeeyo casriga hadda aanu joogno dhallinyaradii way ku daateen way ku lumeen waxbarashadoodii way ku khasaartay nolosheedii cumrigoodii wuu ku khasaaray wax uga soo laabanayana ma arkaan wax uga soo laabanayana ma arkaan waxaa laga yaabaa qofka haddii la yidhaaho war 100 tasbiixa halkaa u fadhiiso 100 istikfaara halkaa u fadhiisay akhriso juz qur'aana akhriso inuu caajisay inuu halaaqoonayo inuusan awood u lahayn laakiin munkarka awood u leeyahy iyo malaayacniga awood u leeyahy waa qayb ka mida dabinnada iyo shirqoollada shaydaanku uu u dhigo qofka bini aadamka waa dabin shaydaan sidaas awgeed qaybta nafciga kuule ka fiirso haddaad muxaadaro ka fiirsanaysid muxaadaro aad ka dhegaysanaysid warbixin muhima aad ka akhrisanaysid oo lagu soo diray ka akhriso kabacdina iska jooji waxyaalaha maalayacniga iska xir albaabkooda lanna waxaa weeye baalkan internetku waa silaax duu xaddayn waa hub laba afla ah wanaaggiina wuu ku jiraa xumaatadiina way ka buuxdaa noloshaadu markaa habba sida aad adigu qaybta aad ka adeegsato ayaa noloshaadu noqon haddaad qaybta xun furatid oo adeegsatana waxaad noqonaya shaksiye xun ee liidata oo ahlu naar ah qaybta wanaagsan haddaad ka furatood ka adeegsatana shaksiyad wanaagsan oo ahlu jannaha soo bar laakiin dadku waxay u badan yihiin waxyaalaha maalayacniga ah qaybtaas ayaa bulshada u badatay inay waktigoodii ay ku bixiyaan sidaas awgeed xilligii bahalkan uusan soo bixin internetka uusan soo bixin dadku waxay samayn jireen markii xoogaa jaanis ay helaan oo nus saac 2 saac jaanis ay helaan qof walba jeebku intuu gacanta geliyo tusbixiisa uu ku mashquuli jiray war qofkan intaan sugayo 100 istikfaar aan akhristo 100 salliga nabiga aan akhristo sala allahu calayh wasalam hadda ma jiro qof markii la sugayo ama isbitaal qofku u fadhiyo inta xilliga dhakhtarka uu sugayo ama qofku yidhaha meeshan igu sii sug gacantuu gelinhayaa facebookiisu la soo bixi ma jiro cibaadadii lagu mashquuli jiro facebookiisu la soo bixi markaasuu waktigiisii meesha ku dayaca waxyaalaha nolosha ku soo kordhay oo khatarta ah loo baahan yahay in wax badan laga foojignaado nasأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه ويحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد